daawadayaal waad salaamantihiin kusoo dhawaada barnaamijka talo iyo tusaale. Caawa waxaa inoogu martiya laba macalin ee ka dhiga culunta kala duwan magaalada tan London. Cusmaan, kusoo dhawaad programka. waa ku dhawaad. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cusmaan, waxaan ka mid ahay macallimiinta Soomaaliyeed ee magaalada London wax ka dhigta. Cali, kusoo dhawaad barnaamijkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cali Yuusuf, anigana waxaan ka mid ahaa macallimiinta oo London wax ka dhigta. Cusmaan, waxaan jeclahay inaad si guud aad u eegto, aad u fiiriso dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la isdhihi karo waxay u sabab yihiin inuu wiilka ama gabadha uu iskuulka ka haro. Horta aad ayaad mahadsan tahay Abaadir. Markaan ka hadalno drop out-ka ama ciyaalka ama youth-ka Soomaalida oo iskuulka ka hara, sababtooda aad ay u badan tahay. mid hore mid family ayaa jirta, mid individual ayaa jirta oo shakhsi ahaantooda ah, mid waxaa jirta community ahaan ah. Marka mid aan u falanqeyno. Okay. Mid hore aan ku bilowno. Marka hore mid hore waxaan ku bilaabaynaa waa family-kii. Ilaan waa youth weli family-ka ay ku xiran yihiin. Okay, iskuulka horta wuxuu u baahan yahay family ahaan, yani markaan ka leeyahay hooyada iyo aabaha inay fahamsan yihiin iskuulka systemka uu shaqeeyo wadankan. Garta. Qaarkeen wax way soo barteen Soomaalida. Markaan ka hadlo hooyo aabaha ayaan ka hadlayaa familada. Waxbarasho way soo mareen, tii Soomaaliya ay soo mareen, qaarna chance aysan ku helin ay ku soo maraan. Taa horta waa mid ka mid ah problemyada. Okay, kuwa wax soo bartay ama kuwa wax aan soo baran markii wadankan la yimi, marka ugu horeysa waa qasab in aan fahamnaa horta luqadii. Adigoon luqadii aan fahmin way kugu adkaanaysaa in systemkii aad fahamtid wax lagu baran lahaa. Parentkii ama hooyo aabihi ayaan hadda ka hadlaynaa. Okay. Sababta ay ku leeyihiin drop out-kaas. Okay, marka kore waxaan kusoo bilownay systemkii ayaan kusoo bilownay iskuulka inay la qabsadaan. Systemkii waxaa ka celinaya marka qaarkood waxbarasho la-aan ayaa jirta, ama hadday noqoto inay wax Soomaaliya kusoo barteena in systemka inta aysan weli la qabsan. يعني منهجك إسكولك منهجك إسكولك ما إيسان لقبسن ولي أو سيستم كما يقارن سوء الشقي إسكولك لبلده إيكال ليهين وكلا وحيابه لبرتو كلا rules and regulation أيها ودنك كتيرة وإسكولده إليهين وكلا إن عيالك على سعان كرتد إن معلمين على هذا كرتد وكلا على حساب تمر كرتد وهذه كرتد عيالك تيم ريان وحبر شو ذا سيد هاي والد أهان محكو بيرن كرتها ومت كل واحد كرتها وكلا إن قعن كهين يباهن ته عيالك يباهين sidoo kale homework in la shaqeeyo waxay soo barteen maanta waxay soo dhigeen in la fiirin karo la ogaan karo ciyaalkii ama la support gareyn karo guri ahaan family ahaan la support gareyn karo. Okay, family badankooda way dadaalaan, qaar lacag badan ayay ku baxshaan in tuition ciyaalkii la geeyo. aad ay u wanaagsan tahay, way la dadaalayaa, laakiin haddana weli adigoon systemkii aan fahmin cunugii ma caawin kartid. qasab waa systemkii in aad fahamtaa. cunuga ku dadaal lacag walba ku bixi, laakiin marka hore waa inaa ogaataa cunuga muxuu u baahan yahay horta. waxa uu u baahan yahay maxay tahay, caawinaadu u baahan yahay maxay tahay. adoon taa aadan ogaan karin ma samayn kartid oo ma caawini kartid mugta. midda kale cunuga waa inuu haystaa role model community ahaan, qof uu dhihi karo oo kale, ama Soomaali kale ha noqdo, ama waalid ha noqdo, ama walaal kale ha noqdo, qof uu fiirsan karo, ama community ahaan oo kale, qof uu yaqaan oo kale, ama meelo fiican ka shaqeeyo oo kale, ama qof habaysan oo wax bartay oo kale inuu arki karo kale, ama associate karo kale. taana waa nagu yartahay. midda kale waxaa jirto kale culture different ah, family-kii iyo ciyaalkii oo kale. ciyaalka intay ku dhasheen waalidkii Soomaali ay wax ku soo barteen, culture kale ay waalidka leeyihiin, dhaqan kale ay leeyihiin, ma aysan dhex gelin community-gan hadda oo wadankan aan ku wada noolnahay oo kale, oo weli Soomaalidnimada ay ku dhex jiraan. Soomaalida weli ma aysan ka dhex bixin oo integration ma aysan sameyn. Cunugii integration ayuu sameeyey, iskuulka ayuu ku jiraa. Okay, dhaqanka guriga ma ahan, dhaqan kale ayuu ardayga la haystaa markuu iskuulka joogo. Okay, maalintii waxay moodaa inuu laba dhaqan leeyahay. markuu iskuulka joogo dhaqan kale uu leeyahay, markuu guriga joogana dhaqan kale leeyahay. taana waa problem kale oo family ahaan oo loo baahan yahay in labada dhaqan la iswaafajiyo. waa inuu helaa community ahaan Soomaali ahaan dad uu ku dayan karo. jaaliyadu waa inuu ka dhaxlaa dad. jaaliyadu waa inuu ka dhaxlaa. jeclahay inaan Cali isna aan ka wareysto waxyaalaha sababi kara guud ahaan in ardayga uu iskuulka ka haro. horta koobaad soo sheegay Macallin Cusmaan, there's so many reasons
oo cunuga iskuul oo drop out samayn karo haddii kala saarno waxaan fiicnaan lahayd horta inaan ogaano caruurtan drop out samaynayso oo ka baxaan iskuulkii oo fail to attend or fail to continue their education. Were they born here or were they born outside this country? Dadkii banaanka laga keeno oo family reunion ku imaaday badinkoodu waxay sabab noqotay inay ka tagaan iskuulka sidii macalin sheegay lack of communication oo xiriir la'aanta iskuulka they cannot to communicate maaragtay easily with the teachers. They can't comprehend maaragtay wixii classka laga dhigayo ardayga la keeno isagoo ka soo qaad 10 jir 12 jir 14 jir wadanka la keenay waxa la yiri xataa adiga yaa teen baa tahay iskuulkan baa lagu geeyay waa ka iskuulkan ka dhiganaysa bari lagu geeyay hortidan waa cognitive kooda ability kooda wax dad ku imaaday waa wax faansan yihiin wax baa fahamkooda fiican asagii dhaxal fiican wax fahmayo luqadii baa ka maqan ingiriiskii baa difficult ku noqonaya wuxuu dhan new maaragtay vision new world baa u furmaya oo dhahaya marka daad awgeed waxay soo weysay in asaga ku kalifeen iskuulkii tagin baaritaan loo sameeyo research u tusaayo horta waxa waaye wax la yiraahdo conflict of identity marka su'aal isweydiin karta marka cunuga oo du Soomaali yahay oo Muslim yahay oo madow yahay oo British yahay marka is he a Muslim? Okay, he's a Muslim, yes. He's a Somali, yes. He's a British, yes. Marka identity ki raacaya, integration ki imanaya, who I am ka imanaya. That is horta big problem. Anaha. Horta is a big confusion oo cunuga la socdo. Wuxuu u baahan yahay inuu is aqoonsado marka. Is aqoonsado horta muxuu yahay? Why? One why. Secondly, taas waa la dhaafay waxa arkaysa cunuga multiple identity wato asagoo European asagoo Somali Norwegian Britishna ku nool British school aadayo marka ka soo qaad cunugii soo tagay Soomaaliya wuxuu imaaday Yemen camp 2 sano ku noolaa friends u sameysay asagoo wixii la qabsaday uu ka duulay wadankii laga kaxay waxa la keenay Holland 5 sano 7 sano joogay uu la qabsaday football team uu galay asagoo isqoonsan oo fiican laga soo kaxay hadana London baa la keenay now confusion ma mesh ku jira so many multiple identities ba Soomaali this is one of the things that Somali weyn in loo baaro loo fiiriyo tahay ma jiro wax la yiraahdo la qabsado ma leh at the back of the brain wuxuu leeyahay I'm on the move anigu soconaya hadii uu fiirino waalidkan wuxuu fiirinayaa aniga wadankan waa noqonaya Soomaalidaydan ku noqonaya waa noqonaya asagana uu fiirinaysa in weligeed ku jiro fahansan marka waxa la yiraahdaa in Ingiriisiga ku dhaha myth of returning home macna wali wuxuu maskaxdiisa ku rakibsay inaan noqonayno marka qofka markuu guri ama meel oo temporary ahaan ama Soomaaliya diloof gashin ahaan meel temporary joogo wax yar markaas u baahan yahay qabsanaya marka taas awgeed waxa arkaysaa cunugii inii infasiga oo pressure laga rabay saarin sidii laga rabay marka ilmaha ku dhasha meeshan magaalada ay ku dhasheen iyagoo ka bilaabay iskuuladii ka hooseeyay galaaska koowaad ee ku gaaray ilaa dugsiga dhexe maxaa iyagana u sababa maadaama luqadii yaqaanaan dhaqankii dalka ay la haystaan maxaa la dhihi karaa iyagana u sababa inay iskoolkii ka haraan okay horta runtii hordii oo aan ka hadalno caruur fiican oo maaragtay heer jaamacadood gaareen oo wax fiican sameeyeen waa jiraan maasha Allah laakiin si aad taqaan koleetaba intii yar ama intii xun tahay hadii markastaba shay xun ma ka hormara wax fiican la sameeyay marka horta ma dhihi karno Soomaaliya wax meesh ku dhasheen wax dhan wada maaragtay waxaan rabnaa inaan kuwa ka haray iskuulka kaliya ka hadalno inaan fiirino marka aniga tan su'aalka aad ii soo jeedisay inaan ku xogaho ku khibradeyda ama experience-kayga ku sheego laba isbuuc ka hor waxa ii imaaday macallin aniga dhigo oo science dhigo aniga dhigo wuxuu igu weydiiyay aliyow aniga waalid badan Soomaali baan soo arkay waalidood markiin arkana waalid oo aad wanaagsan oo caruurtooda wax kasta u rabo oo heer jaamacadood meel kasta gaar rabaan markii cunugii arkana cunugiina waa opposite hamikalu leeyahay maxaa wacan why maxaa idinku dhacay Soomaalidii maxaa wacan marka
one of the reasons aniga hadda aan ku sheegay kollaytaba kaas waay marka ku celiya isagaan ku celiyay jawaabta adiga maxaa u malaynaysaa adiga macalinka meesha adiga macalin ka tahay maxaa u malayn wuxuu yidhi aniga waxaan u malaynayaa inaan Soomaali caruurta Soomaaliyeed inay confidence-ka Soomaalinimada ku sheegtaan haysanin oo ka cararayeen identity-gooda Soomaali kalsooni inay isku qabin dhaqankooda iyo waxa yihiin baan arkay yiri anigu ajnabi way ninkan nin Soomaali ma nin ajnabi waay marka wuxuu yiri marka sababkeeda waxaan u malaynayaa yiri aniga oo xaggayga ma isweydiinayo yiri ma Soomaaliga image-ka xunka Soomaali laga soo saaro oo dagaal ka socdo oo iyo qaxootinimada iyo burburka iyo dhibaatooyinka ma keensaday ma piracy-ga la hadlayo oo Soomaali ku xiga ay diidan yihiin mise waaba iska weak oo dadka vulnerable yihiin oo qolo kasta iska raacda oo peer pressure-ka iska raacda ba isweydiinayo yiri marka saas yiri cartoon yar uu tusay cartoon-ku ka hadlaya ma aragtay burcad badeed oo Soomaaliya ka hadlaya South Park cartoon-ka la dhahayo yiri caruurta markay fiisadaan yiri confidence-kooda probably hoos u dhacay so Soomaalinimada inay isku associate gareeyaan ma doonayeen markasta inuu xogo culture kala sii firiyo marka peer pressure-gaas jiro oo si Cusmaan sheegay community-ga muuqdo iyo jaaliyad lagu daydo jirin therefore due to those problems probably they're unable to continue with their education maxaa laga dareemi karaa in uu yahay mid u fudud inuu iskuulka ka haro horta sababtu way badan tahay sax laakiin haddana si lagu cadeyno way adag tahay cunug waxaa jiri karo kalaaska imaanayo xogaa raf u eg waxbarashadiisu aysan fiicnayn isla markii haddii aad dhahday support ma haysto ama dhibaato kale ayaa family problem ayaa haysto maybe wuu drop garaynayaa sanadka kaliya inuu ka haro waa u malaynaysaa laakiin waxaa dhici karto sanad kadib ama 2 sano kadib markuu yaro kala galo inuu haddana cunug isbedelo improvement sameeyo marka si lagu way adag tahay sida lagu identify gareeyo ama lagu aqoonsado aad ay adag tahay laakiin waxaa la dhihi karaa oo kale cunugii oo kale oo luqadii aan weli ku hadli karin English luqadda wax ku barato oo aad ay weli dhib ugu tahay year 9 year 10 year 11 weli oo struggle gareynayo aniga waxaan arkay arday year 11 ah waa sanadka ugu dambeeyay GCSE-ga Ingiriis wadankan ay ku dhasheen si fiican luqadda uga hadli karaan laakiin ma qori karaan okay meeshas aan wax yar aan ku hakano cali arinta ka waran horta arin wajirto waaye oo caruur Soomaali kaleed maaha caruur cadaan wadanka ku dhashay caruur oo Asian oo Bangladesh oo kamid yihiin India kamid yihiin madowga kale oo Afrika ka imaadeen oo Zaire oo ku jiraan oo badana jiro wadanka ku dhashay oo laakiin si maalasmaan sheegay hadalkiina si sax ku hadli karo oo waxaan qori karin taasna waxaa sababaysaa cunuga markii waxbarashada wuxuu ka bilaabanaysaa sideedaba 5 sano ilaa 7 sano wax la yiraahdo cognitive ability cunug baa dhismaya sidii wax uu qorayo sidii qalin u qabanayo sidii ma aragtay imaginative thinking wax badan u sameynaya childka hadduu basicaas ka dhimo oo 7 years gaaro cunuga oo ka badan marka waxaa noqonaysaa wixii baan dhan ma aragtay waa iskuma dheelitirnaa complete ma marka taas waxa sabaysa early childhood are very important marka dadka caruur yar haasto oo hadda 5 years 6 7 haasto oo inaa sugin aniga cunugeena 10 sano sugo markaas wax baraya oo inuu hadda bilaawdo cunug maskaxdiisu furan yahay cunugu markuu yahay wax la yiraahdo 32 mnemonic code wax la yiraahdo jiro oo luqadda intaas oo luqadda baran kara cunugu yar hadda 7 jiro 6 jiro Chinese hadii ma bilaawdo 3 way ka bacda isagoo Chinese ku hadlaysa arkaysa marka cunuga markuu yar yahay 32 code oo kamid ah u furan asaga markuu si weynaado mid buu lose gareynaya mid uu dhuminayo markaas kii hooyadiis ama kii lagu hadlo dominant language baa ku soo xiraya markuu weynaado waxaan dhihi karno waa thinking language kii marka luqadda uu ku fikirayo ayaa waxay noqon tu buuxda oo 100% ka marka inuu cunugii laga bilaabo oo cognitive ability-giisa iyo reading ability-giisa iyo numeracy-giisa la dhiso waayo because brainkan waa brainka bini'aadamka waa sidii gym adoo muruq dhisaysa camal waayo haddii luqaddu ku fikiraya tahay luqadda English ah ereyadaas isdaba yaala
waxaan rabaa inaan dukaanka nacnac kasoo iibsado, iyadoo Englisha ay u subsan tahay maskaxdiisa ugu jirtaa. haddii luqadda uu ku fikirayo Soomaali tahayna ficilkaas uu suubin doono iyadoo Soomaaliya ay maskaxdiisa ku jirtaa. marmar waxaa jirta ay nus iyo nus tahay, inay half Soomaali tahay half English tahay, weli markaa ma buuxa luqadda uu ku fikirayo ama thinking language. marka ardayga ay luqadda uu ku fikirayo buuxsanto, ayuu luqad kale uu ku baran karaa si buuxda, ayuu sii dul saari karaa. marka asaaskiisa ayaa aad iyo aad u adag, oo luqadda kale uu sii dul saarayna waxay noqonaysaa uu iyadana si fiican u fahmo. marka adisa u sheegtay sax waaye. hadda waxyaaba badan United Nation maaragtay UNESCO hadda haddii la socoto international waxa la yiraahdo education for all millennium development goal, waxyaaba badan aad marka hore samayn jireen oo hadda beriyaa laga soo noqdaa jiro. asaa sheegtay cunuga haddii wax la baraayo waa in luqadii horta qof oo cunuga luqadiisa hooyo si fiican uu ka saayo. waxaa la ogaaday in luqad kasta ama wax kasta la baro si u fududaanayo. marka taas sheegtay waaye. marka cunugu markuu inuu basic thing inuu haasto waa in horta luqadiisi isaga oo luqadiisa hooyo uu ku hadli karo, qori karo, qasab markaas luqadii kalena waa easy u noqonaya, waayo waxaan waa isleeyihiin, waa isfurfurayaan. waa runta. marka ma aragtay sida macallin Cusmaan uu arkay isna uu tilmaamay arday aan qori karin luqadda ay wax ku bartaan buuxan meegalaas kasta ku jiraan. maxaa markaa ardada ay yani maxaa u sababa la dhihi karaa? horta waa la kala jiraan cunuga cudur ama wax la yiraahdo dyslexia uu yeelan karaa, oo maaragtay wadankan oo aad ba lagu baara carruurta markay yihiin cunug speech problem uu qabi karaa. waxaa la yiraahdo late imaado, laga yaabo marka qoraalkiisa wixii isla markii sidii cunug kasta isla markii wixii masla imaanayeen. marka taas waa arin kale oo gooni ama arin rabbaaniye waaye oo laga baari karo, cunug laga caawin karo. waxaa la yiraahdo maaragtay dyslexia ama maaragtay si kale oo loo baari karo oo maaragtay clinical psychologist oo kaleeto oo laga fiirin karo. laakiin ta aad sheegayso oo cunug waxbana qabin oo speech problemkiisa waxba haysanin oo laakiin sidii kale basic education kiis ba maaragtay la siinin gudahana soo dhamiyay. marka waqtigii joogana waqtigii oo erayaha basic ah oo mataqaana oo lagu hadli karo ama la qori karo hadda qori karin. marka taas waa dayac oo maaragtay oo isagoo yar. middaasaan ka dhex galo. Cusmaan aan usoo noqono, maadaama adigu aragtay ardada badana iskoolka ka harta inay yihiin kuwa aan qori karin luqadda ay markaa wax ku bartaan. taas waxaan jeclaan lahaa inay waalidka ay mawduucan hadda laga dhawaajiyay ka faa'iidaystaan, ilmahooda ku fiiriyaan, inay waraaq u dhiibaan, yiraahdaan aabba ama hooyo ii qor sheeko ku saabsan luqadda markaa aad wax ku baranayso. wuxuu waalidka markaa kala ogaan halista wiilka ama gabadha ku soo socoto oo ah inuu iskoolka ka haro ama ka harto. haddii waraaqdaas ay dhan tahay maasha Allah, laakiin haddii kale waa inuu waalidka u raadiyaa in luqadda uu ka dhiso ardayga. Cusmaan, sorry, hore u sii soco. waxaan ka dhihi lahaa aniga ardayda aan arkay arday caafimaad qabto, very smart ah, aad u caqli badan, kuwa la dhashay ayaa jira, wiilal ama gabdho la dhashay ayaa jira iskuulka dhigta oo very well educated ayagana ah, waxna qori kara waxna aqrin kara, grade fiicanna haysta. laakiin qof iyo labo oo familka kamid ah ayaa haddana low level ah. marka waxay haddana tilmaamaysaa waa pointii kow marka hore aan ka hadalnay oo ahaa familkii systemkii inuu aware ka yahay, language barrier familka haysto, in ilmihii ay controli karaan, ilmihii ay levelkooda ay la soo socdeen. ciyaalka haddii lasoo raaco year 7koodii primary schoolkoodii meeshay marayaan haddii lala socon lahaa waxaanoo dhan ma dhici lahayn. marka cunugii markuu dalooladaasoo kale uu helo ayaa haddana daloolo kale ayaa u furan oo ah identigii kale oo macalin cali uu ka hadloo kale oo dhahaysa shakhsiyadiisa ayaa xoogaa conflict ku jirta. westernka ma la qabsan karo, iskuulka ma la qabsan karo, familkii culturekii waa different culture ayuu ka yahay. soo isiguu arko oo familkii ama hooyadii aabihii Soomaaliya ay wax kusoo barteen, Soomaaliya ay kusoo dhaqmeen, community Soomaaliya ay ku dhex jiraan oo weli westernka ma aysan dhex gelin ama wadankii si fiican ma aysan u dhex gelin. magaalada waa degan yihiin laakiin ma dhex gelin weli ma aysan la qabsan.
marka cunugii labadiiba ma geli karo kii westernkiina ma geli karo oo weli si fiican asna ma uusan ula qabsan weli dhexda ayuu taagan yahay wuxuu raadinaya identigiisa ayuu raadinaya marka taa waxaa kalifaysa oo kale asna groupyo kale oo markaa hadda jira sida Soomaalida oo kale hadda xaafad walba groupyo waxay leeyihiin sida aad sheegtay oo groupka ayuu arkaya marka in ay groupkiisa ay yihiin oo dad inta ku dhashay ah ama dad inta yimiyo kale laakiin luqadii bartay marka waxaan ku leeyahay sawir kugu sheegay aad ay adag tahay waxa dhici karta wiilkaas oo kale ama gabadhaas oo kale wiil ama gabar kale la dhashay oo haddana heer jaamacadeed gaaray oo heer sare waxbarashada aad u wanaagsan tahay ma sha Allah waxaa kale ma jira u sababa ardada inay iskuulka ka haraan waxaan ka soo hadalnay taariikhdii ardada wadamo badan ay soo mareen dal mar yihiin in ma garanaysaa ay luqadda wax ku qori karin waxaalahaas oo dhan wax kale ma jira oo aad aragteen oo u sababa la dhihi karo waa u sabab in iskuulka ka haraan horta arinta dii xogo aan sii dheerayno ama si meeshii aan ka wadno caruurta markii secondary school baxaan waxay aadaan sixth form college wadankan system ka jiro marka cunugu markuu dhameeyo secondary school inuu aado sixth form college sixth form laba sano u dhiganaya ama qayb oo A level ku maraya oo laga rabo in A level subject dhigto ama BTech jaamacad isku diyaarin jaamacad isku diyaarinaya jaamacadaas waxaa laba sano la isku diyaarinaya oo area muhiim aad ka soo dhawaajisay waxa waaye subject choice wax la yiraahdo jiro waxa aad dooranayso oo marka cunuga marmar laga yaabo in pressure guri ka haasto marka caruur aniga naqaana Soomaali kalima hata dadkan Asianka badankooda cunuga waxa oo adiga waa inaad noqotid dhakhtar noqotid waa inaad noqotid engineer waa inaad noqotid فلان marka cunugu wuxuu sameeynaya waxa la yiraahdo wrong jobs fix oo waxba shaqo isku lahayn biology qaadanaya sociology qaadanaya markaas accounting uu sameeynaya markaas economics uu soo daraya marka waxa arkaysaa economy accounting waxa isleewa oo asigi ama yani science ama scientist noqon karo oo subject isku qaadan karo chemistry biology la ka soo qaad physics maths isku qaadan karo bal isku qabsan qaado oo marka anagu inuu horta first of all interest la fiiriyo wuxuu jecel inuu sameeyo ma dhakhtar noqon rabo isma accountant noqon raba marka waxyaalaha waxay ka mid tahay kalifa inuu isu diyaarin jaamacadda inuu ku ka haro iskuulka waa mid ka mid ah laakiin aniga waxaan ku darsan lahaa cunuga hadduu marba heerkaas gaaraba oo GCSE-giisa ka soo baxo oo A level gaaro weli rajadiisu way fiican tahay dropouts-kiisuna way yaryahay xataa jaamacad uusan gelin ama A level-ka uusan dhamaysan inuu shaqaysto isku daya jaawanin xogaa wax soo bartay xogaa meeshaas waa ka fiicannahay laakiin dropout-kan wuxuu u badan yahay laga bilaabo year 10 year 11 ayuu u badan yahay dropout-kan year 10 ilaa year 11 waa under 16ka ayaan u badannahay badanaa intaasaan u badannahay taana waxaa kala fikirto kale mid kale tan cali uu sheegay waa jirtaa oo maadooyinkaas oo qaladka ama cunug uusan ka bixi karin in uu sameeyo laakiin tan ugu daran waxay tahay oo kale in cunuga la qasbo sida oo kale la duufsado ama la buli gareeyo iskuulkii in uu groupyo kale ama gaankiis oo kale uu galo haddii xataa waalidkii ay dadaaleen wax walba ay sameeyeen cunug adaabtiis ay fiican tahay laakiin markuu iskuulka joogo in la xukumo cunugii oo howl kale la duufsado howl kale la gasho marka taa waxay kalifaysaa inuu waxbarashadii ka dhaco waxay kalifaysaa inuu groupkina ka cararo familka xataa ka cararo oo meelihiis iska yaa marka waxaan jeclahay inaan u guda galno xalkii muxuu noqon karaa waxaan ognahay waalidka inuu dhaqan kale leeyahay iskuulkana dhaqan kale leeyahay iyo shuruuc kale guriga laga yaabaa shuruucda iskuulka taalloo kale inaysan oolin laakiin iskuulka inuu leeyahay shuruuc adag daqiiqada iyo time wax ku saabsan marka labadan dhaqan sidee la isku waafajin karaa horta sababaha way badan yihiin ama solutionka aad u badan yahay xalkeedu laakiin marna ma aha in waalidka horta la blame gareeyo ama la dhaho ayaga qaladka iskala maaha ardaydana qaladka iskala ama ciyaalkana qaladka iskama qof qalad iskala ma waxaysan ogeyn lama dhihi karo waa ku qaldantii lama dhihi karo ciyaalkina ma qaldana waalidkina ma qaldana laakiin dhibaato ayaa jirta horta marka hore Soomaali ahaan horta waa inaan horta khiranaa ama aqoonsanaa horta inuu dhib jiro horta waa inaan iskala dhacinaa marka kadib markuu dhib jiro aan aaminsanahay kadib ayaan xalkeeda hadana ka fikiri karnaa laakiin haddii aan iska dhacdhacin waxba ma jiraan weligeed xal ma imaanayo okay aan guda galno dhibka markaa og tahay ayaad wax aad xalin kartaa intaadan ogaan wax ma xalin kartaa maxaa aragtay oo u baahan in la iswaafajiyo
labadiina weydiinta la cali adna sidoo kale horta waxa oo si macalin Casman aan sheegan in ku daro waxa waaye unug drop out kan oo sabab badan u keenayo oo ka herayo oo hadii laakiin waalidka naftinkooda inay iskuulka la shaqeeyaan waxa loo shaqeyn macnaha macalinka markuu adiga macalinka la socotid cunuga homeworkiis la socotid cunugaad weydiisid macalinka markuu laba jeer weydiisid cunugiis weydiisid u tagtid oo weydiisid ama email u dirtid hadraadid cunugayga intuu maraya cunugayga asagoo homework samay ma arkin maxaa ku dhacay macalinka naftinkiisu cunugan focus gooni u saaraya yani wuxuu ogaanaa in su'aal laga weydiin doona marka jawaab tomorrow jawaab uu diyaarinaya marka haddii laakiin cunuga iska imaado oo socdo wax daba socon arkin macalin naftinkiis يعني انتيس وقبنايا لكن انتي قبنايا وكأكانايا وحنا نقول عن حلقة وكجرا هرت وإنه هرت عنقين مركو كانوا أما نقض برايمري سكول هالجوجا أما سكندري سكول هالجوجا أما سكس هم الجوجا وإن لسه عنهم محسوب برتي ما أنت ولا شيء كسنه محو برتي محو مك ما هي ستا قول ما أنت هم مقلدين سيا يا إدين برا محل ذيك الشيء كي ما أنت مركا واحد توصل ستا واحد اللي يراد sense of belonging من عنق وأنا يعني أبيز ويديز إنترس كويهين واحد برشة سو واحد برنايو marka cunug waxa ka imaan kara in waxyaabo badan oo ay ku sheegi karaan markaas ku sheego marka la sheekaysato saa sheegtay maalasman sheegay dad peer pressure jiro group oo kala ma aha aqoon kala ma Soomaaliya laftigooda oo dad caruur kala jiro oo ayaga laftigooda ay rabaan inay waxbarasho sii wadin laakiin in group kala sii doonay inay sii jiitaan experience ka harkay cunug fiican oo say sheegtay grade fiican keenay first year second year markii la gaaray ninkan A level wuxuu ku imaaday ka soo qaad markii A level bilaabay 5 GCSE and above with A B isku mix dhaxjir then waxa dhacday first year of A level uu sameeyay waxa dhan E buu keenay waxa dhan U buu keenay marka dadkan ku dhacay marka dadkan E ga hadii heshid waa ku baastay D ga hata waa ku baastay laakiin wuxuu keenay U wuxuu 5 GCSE and above secondary school year 11 ku keenay oo hadda U keenayo وهذا سؤال وكيل لو يدي عنق لو يدي أو واي أتجي أسوأ سكول كجوجو أو كولج كجوجو أو بريجنا آذن بكلاس كتجين وجوجانا وريجايا محقبنا يا مركي لو يدي عنق كذا ما نريد ويدي وحير محاك ولا محو كلاس كتجي وايسي مركي حير يعني كا معركتي صاحب دايد مركي أيك درسوا هاستين على فديي مركي درسوا لما تأني تيد تجرن واحد وكل فدينا أنا كم كل فدينا وقت جينا كل قاضني ما بحكرتي سو بحيسانا marka waa waqtigooda la qaato marka peer pressure-gaas ka jira barunta iyaga is dufsanay wax walba waxa ah wadankan ka jirta Soomaalida kaliya ma aha laakiin cid walba wadankan ku nool ama ajnabi ha noqdo ama dad wadanka u dhashay ha noqdeen mid ka jirta waxay tahay in familkii iyo ciyaalkii aysan war iska hayn system kale guriga loogu dhaqmo system kale iskuulka loogu dhaqmo وسان كل شيء ولا بدي culture كله توينها. صح. حتى هذا solution هذين وكلنا وحاول نكسن إن فاميلادي أي فرفران سكول كإلا قبصدان لقد أي برتان معلمين تأيلا هالان فاميلادي كله سكول كدكتي أما أجنبي هالنقطة مودن كاور الشين إن أيلا شاكستان سأركتدو دي أي جنو أركان فكرة أي كخبان سكول كأما عيالك أما نرش جود ودن كان أما سكول كبر وحياة كوجس قط مركز على هذا الشو وحبار كوجس زائدة يعني مركز إن إسفران أي ذاتك ده كلام إن عيالك إسكوديان إن أي لهالان معها إن أي كنترولان أما أي أمران كلية معها لكن إن أي عيالك إسفهمي كران إن أي عيالك إسلو هذا حد كران ورقوا كلا إسكول كلا قصة دراية وكلا عيالك بس أي جاتعان أي جورقة قادنايا والدك ما بكبر قبوا ها مركز تاس سلوا جود بكرة تاس هو بتاع برنامج كوبلونا سومها هرت اللقطة دي هرت الله برتا واي سيستم كي إلا لقب صدا صح ويلك أما قبل الله شيء كيسن كرتا نط كلي إن الله اللي كرته هواي مو نكسنتها هواي مع عفمات قبتها كلية مع أبا مو نكسنتها مع عفمات قبتها كلية معها لكن والليفل وكهر اللي كره وأنا كلا هذا شاهو كلا هذا كلا لقدها وكلا دوين وكلا قفك ساينتيستيك أو كلا قفك جورناليست هو كلا قفك معلم كو كلا لقدها جوني أيه كهلان أما سيستم جوني أيه كهلان مركب عيالك سيستم كودي حتى وأنا لقبسته سكول كي صبرتين سيستم كدي على التقاليد وكلا جوج سكولك أكبر قبتيد آدابتي أكبر قبتيد نلاش جين سكولك أما نلاش ودنك أكبر قبتيد عنق سكول لبلا أيه كهال كرتان لكن مركب عنق لبلا كلا أسنوية أما لبلا كلا عاطها ما اللي يسفهمه
يعني waa mawjadaad kala haystaan laba mawjad kala duwan okay waalidka iyo iskuulka sidee markaa maxaa ka maqan inay iswaafaqaan isfahmaan waalidkii iskuulka si isku fahmi karaan waa in waalidka la shaqeeyo iskuulka isoo la shaqeeyna waxa waaye waalidku in horta meesha waxa ka socda ka soo qaad wax la yiraahdo parent governing body oo يعني iskuulka parent bana waalid ka mid aha waa waalid si tabarucaada iskuulka ugu shaqeeyo qasamayn maalinkaas taagnaatid de waxa la soconaysa wax meeshan ka socdo iskuulka maamulka maxaa laga dhigaa maxay shaqada qabanayaan shaqada qabana waxa waaye macnaha macallimiintii kamid yihiin qaar iyo dad kale oo ka imaaday local councilka iyo macallimiin oo iskuulkaas ka shaqeeyaan iyo dad kale volunteer baa isku imaanaa iskuulkii baa ay manage gareynayaan iskuulka gareynayaan ha sida hadda macallin Usmaan uu sheegay luqadiya adag luqadiya dhib ku ah marka hawshaas marka qof ka qayb qaadanayo wuxuu u baahan yahay luqadiina waxba marka dad badan jiro luqadiina ku hadli karo oo laakiin oo involve gareynaynin oo iskuulkii la soconin marka waxa waaye dadkii kamid ah waxa bulshada adiga hogaaminayso adiga kamid tahay bulshada dhex degan tahay marka hadii adiga awoodda tahay oo waxaan qaban kartid waa inaad bulshada kale wax u qabatid marka hadii laba oo saddex ii sheeg maartay waalid Soomaaliya ka muuqdaan meesha iskuulka naftigiisa ku xishmeynaya wuxuu arkaya in dadka oo proactively oo caruurtooda waxbarashadooda ay ka murgaan oo meesha taagan yihiin marka saddexdan qof 300 kale Soomaaliya baa matalayn marka qasam maaha in 300 meesha dhigta kulligood wada Ingiriis ama luqadtaas ku hadlaan bulshadii markii la taago role model la sameeyo oo arko community jirto oo muuqato very visible community oo wada cod hal cod leh sidoo macallin Ali sheegay waalidiin badan ayaa jirta luqadii ku wanaagsan aad ugu wanaagsan inay active noqdaan waa mid ayaga ahaan Soomaali ahaan waa inay isu tagaan oo kale ama qof ay ku baraarujiyaan oo kale luqadii yaqaan inuu ka qayb qaato governing body-gan inuu ka qayb qaato si uu community kale dadka Soomaalida kale u wargeliyo wixii ka soo baxay sharkaas oo kale hadii uusan jirin xataa in governing body la hadashaan hadii luqad aadan aqoon sideedaba in shuruucda ka soo baxda lagu tarjumaano luqadaada hadii shuruucda aadan aqoonina in aad wareysato aad se wax u jiraan se wax loo wadaa hadii aad rabto in wax laga bedelan aad wareysato in wax laga bedelo aad codsato marka ayagana waxay ku qasban yihiin in ay sameeyaan in luqadaada wax lagu sheego hadii aysan jirin hadii jiro qof gali kara luqada ku hadli kara ama xogaa xataa jabsan kara oo adiga istabari kara oo kale in uu active ka noqdo meeshii marka waxa loo baahan yahay waxa Soomaali ahaan family ahaan waalidin ahaan in aan active noqono luqad iyo luqad la'aanba waa mas'uuliyadna saaran in ciyaalkan aan wax u qabanno ما شاء الله إن داوديال ولي وحن برنامجكي وحن كجرنا تلي تصالة قيبتيسي قدام بيسي أيان هذا مرينا وحن شعلنا هاي إن نكسو جبنا محور نقون كرا حلقة المها أرض سكول كدقتا لو قضى أي وحكو برتان أنا قري كرين محور حلقة ذا ونقون كرا حلقة ذا ونقون كرا وميت هرت مركه هر سومال مسؤولية كسارن أنا علينا مسؤولية وين كسارن هذا معلمين تناي سيدي community أما ويجي أما هنقطة consultation عن أصين لهين تلا عن أصين لهين سيدي وحلو قبل لها أرنتان أوكي هذا بدلنا قاب practical أما قاب ولا تعبان كره هذا بدلنا أرضي مقر كره وراك بحذا وورا محامر كالي يلي كره haddii aad ogaatid waa in program waxa jiro loo intervention ayaa jiro iskuulka in aad la xiriirsid in aad arintan iskuulka u sheegtid waxa jiro qayb dhan ay dhahaan SCN ama EAL ay dhahaan oo dadka xogaa waxyaabaha yarka cudurro yarka haya ama luqad aan ku hadli karin ama wadanka ku cusub loogu talagalay ayaa jira department marba waxay leedahay ama qasiiba qaybta Ingiriiska oo kale waxay leedahay oo kale dad ama macallimiin ku takhasusay in ardaydaas oo kale ardayda kale ay soo gaarsiiyaan waxay mawduuci markaa ama cilmigii markaa ay ka liitaan ka caawiya sida hadda luqadoo kale aan ka hadalnay waa very important muxuu cali xalka noqon karaa ardada aanan dhigi karin luqadda ay wax ku bartaan aan qori karin aan ka wada hawadaagsash macallin Usmaan sheegay intervention meesha oo strategy waxa la dhaha jiro oo iskuulkii naftigooda lacag lagu siiyay inay caawiyaan caruurtii hooseeyo oo kor u kici karaan waalidkan waxay leeyihiin oo maaragtay mas'uul ka saaran in unugood horta
si aan ka sheegnay ogaadaan horta in problem jiro. mar haddii problem jiro xal waa la raadin karaa. marka haddii aad denial of the problem jirto oo problemka ogin, taasa horta mushkilada ah. sidee ku garan karaan in uu qori karin? taasay ku fahmi karaan markasta iskuulka waraaqay kusoo dirayaan, reporta lagu soo diraa time kasta cunugaad meeshuu marayo, recordka meeshuu marayo, si qori ability-gi qori karo. haddii oo primary school ilaa maarata inkaan level ku akhrin kara, levelku marayo wadankan different level kala jiro. marka isku dayaan inay kala bartaan levelada jirto oo primary school ka jiro iyo levelaha kale oo secondary school ka jiro, iyo maada loo talagalay ay max loo talagalay ay keenaan cunuga inuu markuu baaso intuu marayo inay kala fahansan oo maxaa la sameyn karaa in la isweydiiyo, ay waalid ahaan isweydiiyaan cunugan xaggana joogaa inuu tago meel fulaan, markaasay u sameyn maxaa u sameyn karnaa. waa ina pressure saaran iskuulkii. iskuulkii lacag waxaa loo talagalay lacag oo dowlad ka imaada jirto, dadkaas oo kale lagu caawiyo. point of call, first point of call waa ina iskuulkii pressure garage cunugaygu wuu hooseeya, waa ina la siiyo after school club, waa ina la siiyo maaragtay special gooni ah indha gaari lagu fiiriyo. markii wadankan waxaa laga arkay dadkaas arrimahaas ka faa'iidaystay waxaa waaye dadka working classka ah oo wax bartay oo cadaanka badan oo waxaan fahmo baa ka faa'iidaystay. adeegaas Soomaalida way la baxdaa, jeebkeeda kala baxdaa. sax. waxay bixiyaan shaqo guri wax la yiraahdo tuition ay galabtii ilmaha geeyaan maalmaha sabtiga iyo axadda. marka cali waxaa leedahay iyadoo waxaa jirta free ah. sax. free aan ka dhaxgal cali adoraali ah waxaa jirta iskuulka ayaa baxsha xataa tuition oo extra ah oo dawladda lacag gooniya ku siiyo shaqo guri inay ka caawiyaan iskuulka waa laga baxshaa. interventionka oo kale ayaa jira oo asna gooni lacag gooni la siiyo ciyaalkii, xataa kaliya ma aha kuwa liita kaliya ma aha, xataa kuwa heerka sare ah xataa in kor loo sii qaado. marka waqtiyada kale waqtiyada waay ma waqtiga iskuulka la dhigto mise badanaa waxay u badan yihiin waqtiyada iskuulka oo kale. xisooyinka laga soo wadaa, hal xiso ama laba xiso ayaa laga soo wadaa si heerkooda loo sii qaado, kuwa liitana lasoo qaado, kuwa sarena hore loo sii qaado. marka xiisadaha marka galaaska arday laga soo bixiyo galaaskiis wax kale u dhigan markaas wixii uu dhiganayo way dhaafay soo maaha. waa mid laakiin hadhow si kale loo dhamaystiri loogu kabo mid wax u dhamaysa ma aha. okay taas waa qaabkii uu ku geli karo galaaska kale. midda kale waxaan raacinayo kale in aysan waalidiinta aysan sugin parents evening oo kale markii appointment la siiyo. marka ay kugu soo dhacdo ama isdhahdo alele waa u baahan tahay in aad iskuulkii aado macalinkii aad u tagtid, macalimiinta appointment samayso ama drop in tag macalin hebel la hadal, kala hadal caruurtaada, kala hadal wiilka iyo gabadhaada, kala hadal oo ha sugin 2 bil ama 3 bilood mar ama sanadkii mar ama labo inaad iskuulka macalimiinta aragtaa sugin. haddaad doontid usbuuc walba tag ama bil walba tag ama term walba tag si yani macalimiinta xataa report ula samaysid xiriir wanaagsan aad u yeelatid. xaalad badan aadan ogaan lahayn ayaa soo ogaanaysa ayaa ku soo baxay. tag iskuulka maalin walba waa tagtaan taga macalimiinta la hadla. cali haye maxaa ku darsan? horta dowladdan cusub oo conservative markii soo gashay waxa la xisbiga Nicolag oo watay waxay ballan qaadeen dadka inay siiyaan wax la yiraahdo people's premium oo waxa kamid ah dadka aruurta u hooseeyaan oo inay kor keenaan in class support. taas kooni waaye. markii dowladdii coalitionkii la dhisay one of the things oo loo ballan qaaday la fuliyay waxa ahayd in sharcigaas la fuliyo. sharciga waa la fuliyay. waxa la yiraahdo people's premium ma jiro oo dowladda lacag ku siisay iskuulaha inay ku siiyaan caruurta extra time, especially even after school or in class sidii macallin baan sheegay oo laga soo saaro unugii timetable-ka la samaynayaa si iskhilaafisa sheegtay qaar jiro si fiican iskuulaha ku xiran tahay oo looga dhigay sidii unugii si u waynin waqti loo talagalay. taas kooni waay. people's premium waa socdaa waana jira waa wax waalidka uu macalinka weydiisan karo in ardaygiisa hadduu wax ka dhiman yahay absolutely taas lagu caawiyo. okay maxaa marka generally si guud ahaan aad kusoo gabagabeyneysaan barnaamijka? maxaa tala ahaan aad soo jeedinaysaan? waxaan dhihi lahayn Soomaali ahaan community ahaan in aan qofba wuxuu ku fiican yahay community-ga ka caawiyo ama qofku yaqaan oo kale wuxuu u sheegi karo u sheego. midda kale waalidiinta inay active noqdaan oo ciyaalkoodii ama caruurtoodii ay waxbarashadoodii ama noloshoodii ay ka qayb qaataan, aysan ag joogin laakiin ay ka qayb qaataan in active noqdaan. waalid walba ciyaalkiisa qofku ku hadlaynayo iyo qofku ka jecel yahay male waa wax loo hubo waay. siiba Soomaalida naf iyo lacag wax walba maal wax walba ay huraan waa wax jira waay. laakiin in ay systemka dhex galaan ayaan ka wadaa
يعني إن إلا السعودان active إنه قدان وحنا كله هاي سكول كوي تجمع معلوم بيكسر ودان ويجيان tuition أي ويجني قلا آذان قارة هبين كلا آذان قادة 7 days لا آذان العقب بحشة لكن إن إيه ده كلام إلا السعودان كرئي هوس معلمين إلا هذا الكلام عيالك إلا هذا الكلام والدين تكلا إلا هذا الكلام كلية ما أقوى سوما لذا كوا أجنبي مودن كهود عشان عم يسمون إلا هذا الكلام اسفهم وإنه يجرى اسفهم أجرى active نقطة نورش عيالك active نقطة معناها تاس دي كنت درست هرتو أو اللي يرادو أو كفي عن واحد social networking صح إن بارنت جودهودا والدينتا إن لحظودا سومالي أهان إسبان سميان محاجرة عروض سوق هنان أو سنتا ديميل جرو سومالي جرتا أما سنتا أو كوميونتي سنتا جرو أو مارتي لابري أهان سوداك سدان سكو إمادان عروضتي وحلا يرادو سعودة هذا two approaches وحلا يرادو child to child وحلا يرادو land to land إيريغان جوغنو ودن كان أدن جوغنو يو قرنيغان جوغنو تكنولوجيا جرو قسم ما أنت هذه كلاس تكتب إنه واحد برتي أجر مركو حجر واحد اللي يرادو شال تشال إنه قاعد وين أو واحد فانسن إنه يجير واحد بريكرا كو تسكون واحد شال تشال اللي يرادا إنه يجيد كوك برنايا قبل هذا أوتومن جرتا بيجوكتو قبل شين جرتا ألفابيت كأوقري كرتا هومك ولا شغين كرتا واحد بدن سو جود بين كرنا جود بين كرتا معلن كفي عمبا sometimes لعده معلمين تحس مهين كلاس كلا قسم واحد اللي يرادو لقيت تجي qarnigii macallinka hor istaaga dheh ana waa aqaana wax kasta aan aqaana wala ka tag qarniga la joogo waxa waaye erigii waa introduce gareynaysaa markay keentid macallinkii waa ka istaagaya caruurtii meeshka wadanaya wax la yiraahdo learning to learn they explore يعني موضوعي soo dhaxdhigaya iyaga marka موضوعي ka balaarinaya ayaka waxbarashada sii wadanaya taas marka waa in ay waalidka ay iyaguna ay waa fikir jira ee loo baahan yahay inuu ka warqabo صح ilmaha inay iyaga wax isbaraan qasab child to child iyo land to land marka land to land ka waxa waaye anigu asaga isbaraya asaga doonaya asaga wixii ka doonaya laakiin wuxuu u baahan yahay guide inaad tooshki tustid hatrada san u raac marka cunugi waa dhaafaysa asaga si waa mahadsantihiin macallin Cusmaan iyo macallin Cali daawadayaal waxaa noogu soo gabagaboobay halkan barnaamijkii Taliya Tusaale talada ugu dambeysay ee la isku raacay ee soo baxday waxay tahay in waalidka uu baaro uu fiiriyo in ilmihiisa luqadda wax ku bartaan qori karaan macalinka ha weydiiyaan haddii tala ahaan xataa ay noqon karto inay yiraahdaan fiiri inuu qori karo luqadda wax ku barto daawadayaal barnaamijka halkan aan kusoo gabagabaynaynaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu